سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة كوفر قلبيد مدن عبد العزيز حسن محمد مدحوينها دولة جبلان مدن أحمد محمد إسلام مدحوينها دولة هيرشبيلة مدن محمد عبد واره مدحوينها كحجين كدولة جلمدوب قدوميها برلمان كإياه كحجين هذا جلمدوب xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golayaasha wasiirada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya bulshada rayidka xubnaha ka fadhiya xafiiska qaramada midoobay xubnaha wafuudda la socota madaxda dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh مدن يالي مرويون شرف وين أي نقطة هاي أنيجا دولة إيا شعب كجلمدو إن أرنقو شرفتين مرتجلين تشروينها كجل الدونا كالين مهمة تاريخ دا دبلوس كدولة نمدا الصومالية شركني وحو إيمانيا إيضا أو مددر ay ka soo wareegtay kulan ay isugu yimaadaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya walaalayaal waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qadarinta leh ee aad u aqbasheen gogasha ay fidisay dawladda Galmudug waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa safarka dheer ee aad u soo gasheen idinka iyo wafuudda sharafta leh ee aad hogaaminaysaan ka soo qaybgalka shirkan ama gooshan inkasta oo aad ka soo fogaateen xafiisyadiinni iyo howlmaalmeedkiinni haddana waxaad u timaadeen gogosha Galmudug in ay tahay qayb ka mid ah gudashada waajibaadka wadareed ee naga saaran dhismaha nabadda horumarinta dib u heshiisiinta xoojinta midnimada iyo iskaashiga qarannimada dowladnimada Soomaaliyeed walaalayaal bishaan oo aan galnay qaybta dambe ee sanadka 2020 ma jiro ajende qaran oo ka mudnaan badan in is-afgarad laga gaaro doorasho heer federaal taas oo waqti kooban ay ka harsan tahay muddo xaleedka hay'adaha dastuuriga ah mudanayaal iyo marweyn ujeedada gogosha Galmudug waxay ku salaysan tahay in madaxweynayaasha dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ay uga wada tashadaan hanaan doorasho oo xor iyo xalaal ah taas macnaheedu ma ahan in ay taladu innaga inagu kooban tahay sidaa darteed mudanayaal iyo marweyn Galmudug waxay u aragtaa in iskaashiga dhexmara dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay tahay mid dastuuri ah isla markaana lagama maarmaan u ah taabagelinta himilooyinka qaran ee howlaha culus ee dalka hor yaalla sida dhammaystirka dastuurka dimuqraadiyeynta la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan qaran dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha si loo xoojiyo himilooyinka lama huraanka u ah dhammaanteen in lala imaado tanasul is-ogolaasho talo wadaag sababtoo ah ma jiro dhinac keligii sida ugu habboon u meel marin kara waajibaadka iyo howlaha culus ee dalka hor yaalla mudanayaal iyo marweyn dalkeennu wuxuu soo maray geedi socod dib u heshiisiineed oo dheer markii ugu horreysay wuxuu midho dhalay sanadkii 2000 kadib markii magaalada Carte ee Jamhuuriyadda Jabuuti walaalaha nahay lagu unkay dawlad Soomaaliyeed xilliyo iyo xaalado kala duwan ayaa la soo maray laakiin waxay dhammaantood ka midaysnaayeen horumar laga sameeyay dhinaca dhismaha dawladnimada
يدي بوشيسين تفدرالين تدلك مدوين كان دنبه وحدقن سياسة أي سومالي كوفان نغطي إن دورشة لقبته أفرتي سنة مر دورشة شوكتدا إيه waxay qayb ka noqotay ogolaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka mudanayaal iyo marweyn xilliga aan ku jirno awgiis shacabka Soomaaliyeed waxay maanta indhaha ku hayaan gogosha galmudug taala gaar ahaan caasimadda waxaan rajaynayaa in shirkan ay ka soo bixi doonto aragti midaysan oo marxaladda kala guurka lagu maareeyo walaalaha Soomaaliyeed waxaan u cadeynayaa in ujeedada gobashani ay tahay in ay xal ka ahaato mar kale waxaan idinkaga xal ka ahaato dhammaan howlaha taagan ee u baahan maareynta markale waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka shirkan gogoshan muhiimka ah oo runtii aan dhihi karno waa gogol taariikhi ah waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dawladda galmudug siyaasiyiinta hogaamiyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka galmudug gaar ahaan dadweynaha caasimadda galmudug oo si buuxda isu garab taagay gogoshan wada tashiga mustaqbalka Soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan marti sharafta waa u mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya magacayga magaca dawladda galmudug iyo magaca shacabweynaha galmudug waxaan leeyahay mudanayaal iyo marweyn soo dhawaada ku soo dhawaada deegaankiina iyo dalkiina ku soo dhawaada taladiina oo maantay meel habboon joogta lagana gaari karo si wada jir ah is-afgarad iyo heshiis loo aayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waad ku mahadsantahay shirka noo furtay